markaad qofka wacdo whatsappka ma rabtaa in cod nadiifa oo fasiixa loo gudbiyo qofka kale isla markaana laga reebo sawaxanka iyo buuqa hareeraha ka socda oo idil haddii jawaabtaadu haa tahay ka faa'iidayso update-kan nagu soo biir muuqaalkan jacayl u reeb sidoo kalena qaybtaas ugu yeer saaxiib aad isleedahay waa uu anfacaya update-kan keliya update-kan marka uu kusoo gaaro wax kale uma baahnid waxna ma samaynaysid marka aad qof wacdo waad ka faa'iidaysanaysaa feature-kan adigoo keliya xaqiijinaya inuu on kuu yahay laakiin sida caadiga markuu kusoo gaaro update-kan on ayuu kuu noqonayaa si automatically ah intaan aniga filayo haddii marka aad rabto inaad xaqiijisana waxaad keliya taabanaysaa saddexdan dhiric ee mool ay ku qoran tahay kadibna waxaad xaqiijinaysaa in noise cancellationka halkan ka muuqdaa uu on kuu yahay haddii on kuu yahay macnaheedu waxay tahay hareerahaaga sawaxanka ee buuqa ka socda oo idil waa la reedayaa codkaaga keligiisa oo faseexa ayaana loo gudbinayaa qofka kale ee aad la hadlayso haddii aad update-kan ka heshay haddii uu kusoo gaaray fadlan qaybta hoose ee faalihii ka noogu sheeg muuqaalkan jacayl u reeb nagu soo biir ugu dambayntiina ka mid noqo asxaabta im252